Yaxya ibnu Maciin, xisaab la'aan Ilaahay jannada ha ku geeye, caalimkii weynaa ee la odhan jiray Yaxya ibnu Maciin, oo ahaa sheekh reer Ciraaq ah, kuna dhashay magaalada Baqdaad taariikhdu markay ahayd 158 Hijriyada, ayaa waxa uu ka mid yahay culimmada tusaalaha laga dhigto marka laga hadlayo ka faa'iidaysiga waqtiga. Dhacdooyinka lagu soo wariyana waxaa ka mid ah kuwan soo socda. Sidoo ku warramay taariikhyahaankii weynaa ee Khabiib al-Baghdaadi wuxuu yidhi, sheekh la odhan jiray Abu Jacfar bin Nufayl ayaa waxaa socoto ugu yimid Axmed bin Xambal iyo Yaxya ibnu Maciin. Markii ay salaameen ayuu Yaxya ibnu Maciin su'aalihiisa rajo ku weydiiyey shiikhii ay socotada ugu yimaadeen. Dabadeedna Axmed bin Xambal ayaa ku yidhi, hortayna fadhiisii. Yaxya ibnu Maciin wuxuu ku jawaabay, inta aynu fadhiisanayno in wadku noo kaadinayo iyo in kale miyaynu kala ognahay. Dhacdo kale waxaa la yidhi, Yaxya ibnu Maciin ayaa maalin maalmaha ka mid ah ka qayb gala aas. Dabadeedna nin kale oo isna dadkii janaasada jooga ka mid ahaa ayaa xabaasha dusheeda xadiis ka akhriyey. Xadiisku wuxuu noqday mid aanu Yaxya ibnu Maciin weligii hore u maqal oo dhegihiisa ku cusub. Kolka ayuu Yaxya ninkii ka codsaday inuu xadiiska u yeedhiyo si uu u qorto. Ninkiina waa uu ka aqbalay oo waa u yeedhiyey. Waxaa la yidhi, Yaxya ibnu Maciin ayaa markuu gaboobay waxaa la weydiiyey axaadiista uu qoray tiradooda. Wuxuu ku jawaabay 1,000,000 oo axaadiis way gaadhayaan. Sidaa darteed Axmed bin Xambal ayaa laga hayaa inuu yidhi, xadiis aanu ibnu Maciin garanaynin xadiis maba aha. Yaxya ibnu Maciin markuu axaadiista rasuulka xifdiyey ee uu ilaaliyey kuna camal falay, waxaad ogaataa inuu Ilaahay ku abaalmariyey in meydkiisa lagu maydho rarabtii lagu maydhay meydkii rasuulka, nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Taariikhyahanadii qisada soo wariyey waxay yidhaahdeen, markaasoo uu Yaxya gudanaa waajibaadka xajka intaanu Maka imaan ayuu ku horayn jiray Madiina si uu u soo booqdo qabriga Nebi Moxamed sallallahu calayhi wasallam. Beri dambe ayuu Yaxya ibnu Maciin isagoo xajinaya wuxuu sidii caadada u ahayd ku soo hormaray magaalada Madiina. Markuu in yar joogay Madiina ayuu xanuunsaday, isla Madiina ayuuna ku dhintay. Markay reer Madiina maqleen geerida ku timid Yaxya ibnu Maciin waxay yidhaahdeen, kowl hadduu Yaxya yahay ninkii sidaan ogeyn axaadiista rasuulka u ilaalin jiray, xaq wuxuu u yeeshay in meydkiisa lagu maydho sariirtii lagu maydhay meydkii Nebi Moxamed sallallahu calayhi wasallam. Sidaas awgeed waa lagu maydhay, waxaana lagu aasay xabaalihii asxaabta rasuulka lagu aasi jiray ee lagu magacaabi jiray Baqiic. Daawado waxaad ogaataa, Yaxya ibnu Maciin markuu imaanayay xajka halkuu ka soo safrayay inay ahayd dalka Ciraaq. Inta ay qadarta Ilaahay ka soo kaxaysay Ciraaq ayay ilaa Madiina soo waday si uu halkaas ugu dhinto oo meydkiisa loogu maydho sariirtii lagu maydhay jidhkii Nebi Moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee sharafta lahaa. Jaa'isada rabbaaniga ah wuxuu ku helay axaadiis iyo sunnadii rasuulka ee uu ilaalin jiray waqtigiisana uu huri jiray.